ma doonaysaa inuu Allah subxaanahu wa tacaala uu ku siiyo cilmi wanaagsan ama aqoon wanaagsan Allah subxaanahu wa tacaala ku siiyo cilmi ku anfaca adiga ku anfaca qeyrkaana anfaca ma doonaysaa Allah subxaanahu wa tacaala inuu ku siiyo risqi xalaala ama quud xalaala yacni maal xalaala Allah subxaanahu wa tacaala inuu ku siiyo ma doonaysaa in Allah subxaanahu wa tacaala uu ka aqbalo acmaasha iyo wanaagyada aad samaynaysa oo Allah subxaanahu wa tacaala uu agtiisa ay wax kaaga taraan ama ay ku anfacaan Allah subxaanahu wa tacaala agtiisa camalada aad samaynayso ama camalkaagu inuu noqdo camal saalix oo mutaqabbal oo la aqbalay haddaba nabigeenu salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh xadiiska ay umu salama kasoo warinaysa radia allahu canha wuxuu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh mid ku ducaysta ducadan oo nabigeenu wuxuu dhihi jiray salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh allahuma innii as'aluka cilman naafica ilaahu subxaanahu wa tacaala waxaan ku weydiisanayaa cilmi naafica oo wax tara yacni cilmi anigana wax tara qeyrkayna wax tara oo anfaca ayaan ku weydiisanayaa sidoo kale waxaan ku weydiisanayaa risqan dayiban risqi wanaagsan iyo maal wanaagsan xoolo xalaala oo dayiba wanaagsan ayaan ku weydiisanayaa ayuu nebigu ku ducaysan jiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sidoo kale nebigu wuxuu dhihi jiray wa camalan mutaqabbala camal la aqbalo oo saalixa oo ilaahay agtiisa laga aqbalo oo ayaan Allah subxaanahu wa tacaala ku weydiisanayaa nebigu ku ducaysan jiray marka haddii aad doonaysid intaas oo dhan inaad heshid ducadan ogow oo ku ducayso waliba xilligan ducadan lagu ducaystaa oo ay nebiga ka soo aroortay waxay ahayd bacda salaati alfajri ama salaada subax ka bacdi ayuu nebigu ku ducaysan jiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh